xabsiga guud ee Muqdisho oo kamid ah xabsiyada ugu weyn ee dalka uguna casirsan xilligan ayaa gudanaya waajibaadkiisa 58 maxaabiis oo xukuno kala duwan ku xukuman ayaa loo wareejiyay si ay ugu dhameystaan waqtiga u harsan waxaana xabsiga lagu tilmaamaa kan ugu casirsan Afrika oo dhan. wareejinta maxaabiista ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay dib u habeen ballaaran ku sameysay xabsiyada dalka. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Keenan oo la socday hanaanka dhismaha xabsigan iyo muddada uu qaatay ayaa sheegay in tan ay bilow u tahay hanaanka dib u habeynta xabsiyada dalka. waxaa sharaf noo ah inay nagala soo qayb galaan iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed munaasabadan oo uu ku howlgalayo maanta xabsiga guud ee Muqdisho. xabsigaas oo juhdi weyn iyo howl badan la soo galiyay. anagu marka in badan baan warbixin ka bixinay, in badan baan ka hadalnay min maalinta la dhaxeeyay maantay. sharaf waxaa noo ah maantayto inuu gudoomiyihii gobolka ahna duqa magaalada uu nala joogo. dadka xabsiga soo galaya ama lagu soo xirayana ay yihiin bulshadiisii uu asagu mas'uulka ka ahaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso ayaa ballan qaaday in uu ka hirgelin doono xabsiga shaashada ay kala socdaan maxaabiista hadba wax ka socda dalka iyo caalamka intiisa kale. waxa sharaf weyn Soomaaliya u ah in xabsiga guud ee Muqdisho oo juhdiga badan la geliyay sida casriga ah loo dhisay ahna xabsiyada ugu casrisan geeska Afrika in maanta howlgalay maxaabiistii ugu horeysayna halkan la keenay. indhiina ku soo aragteen sida taliyaha asluubta iyo dhammaan cid walba kaalin ka qaadatay xeelalaaliyaha guud iyo madaxda qarankaba juhdiga weyn ee la geliyay in muwaadinka Soomaaliyeed ee xabsiga ku jiro uu helo xuquuq la mid ah muwaadiniinta kale ee u noqoto xabsigu meel lagu tababaro, u noqoto meel uu ku noqdo muwaadin dhab ah hadhow xabsiga markuu dhameystana uu kaalin weyn ka qaato horumarka dalka. in maxaabiistaas qol walba loo gelin doono telefishin si ay bacdama sariiro loo helay goobo ku habboon oo muwaadiniintaas xuquuqdooda lagu ilaalinayo. haddana inta ka dhimayna u istaagno kaalin weyn ka qaadano arrimaha wacyigelinta ha noqoto si telefishinno loogu keeno caalamka iyo horumarka dalkooda ka socdo ayaga naftikooda u arkaan, madaxda fariimahooda u dhageystaan, isla markaana ay u noqdaan dad runtii muwaadiniin ah oo waddankooda jecel. taliyaasha ciidamada asluubta booliiska iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa waxa ay kormeereen guud ahaan xabsiyada qaybihiisa kala duwan iyo baaxadda uu ku fadhiyo xabsigan ballaaran. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.